haddaba ilaa hadda wax wara oo arrintan la xiriira oo rasmi ah oo hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ka soo baxay hooyo qaali maxamuud guhaad waxay ugu warantay khadka taleefanka waxaan marka hore weydiiyey sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda sidoo igu soo gaaray aniga horta waxaa dhimatay gabar walaasheeya marka aniga tacsidiyaan joogay aniga dadkii eheladaha ay soo waceen oo dhaheen TV-ga qoraalo lagu soo qoray oo nisa ay leedahay gabadhii shabaabaa dilay yaa la ii soo sheegay marka wicitaan baad ku ogaatay warkaas ah in gabadhaadii ay shabaab dileen oo lagu soo qoray telefishinka qaranka marka kadib cid kula soo xiriirtay oo ka tirsan sirdoonka oo kula hadashay tuugii oo adiga wax ka xado alaabtaadi waa tan ku leeh waxaan sheegay warkan soo baxay cid kula soo socodsiisay wax ila soo socodsiyo ma jirto macnaha aniga wajiga igu dhahayaan muxuu yahay aniga inaan waxaas ka aqbalaynin ay ogyihiin sababtoo ah gabadhayda meesha lagu qaaday iyo gaarigii qaaday iyo dadkii qaaday iyo darwalkii qaaday iyo gacantii ku dambeysay wixii dhan waa la ogyahay ma aha meesha iyagu ay wax u dhigeen marka iyaga hadday dileen gabadhaydii qoladaas ay ku raatiranayaan shaqana kuma laha horaan u soo ogaanay warka markuu soo gaaray adiga maxaad samaysay waxa ma samayn aan samayna cid la hadashay oo aad weydiisay warkaas inuu sax yahay in kale inuu ka jiro may warkii isla markii aan telefishinka daaray waa arkay waana ogayba inuu hal ka jira lahayn gabadhayda hadday wax dileen nisaa dishe wax macluumaad kale oo dheeraad oo heshayna ma jirin oo inta dhaafsiisan maya aqliyaan qabnaa ma ogtahay annaga gabadha 2 bilood iga maqan tahay iyo bar intaas waa raadinayna ma jirto qolada ay ku sheegeen ma jirto shaqana kuma laha inta gabadhaada aad raadinaysay marka dadkii aad la xiriiraysay yay ahaayeen qoladaas naftirkooda oo Soomaalidu ma ogtahay waa dad wada ehelo oo isku xiriirsan xarig isku xiran waay marka dadka shicibka dadkeena ku jiro dadka qoladay sheegeen dadkeena ku jiro meel kasta dadkeena ku jiro wax ka jiro malaha waa ka soo weyna meesha ay sheegeen ma xog cad baad haysaa oo ah in gabadhaada ay nooshahay gabadhayda waa nooshahay ma dhihi karo waa dhimatana ma dhihi karo xageed ku tuhmaysaa marka nisa ku tuhmaa nisa Soomaali weyn way u jeedaa ummadda Soomaaliyeed oo aqliga u saaxiibka tuhunkaas aad ku tuhunsan tahay nisa maxaa kugu dhaliyay tuhunka waxa igu dhaliyay meesha gabadha laga qaaday iyo gaarida qaaday meesha meel la soo gali karo maaha meesha meel qoladaas nisa bis ay ka taliso waaye meel amnigeeda sugan yahay waaye meel hadda oo gabadhaas dad kale ugu imaan karaan ma aha markii aad dacwadaada sidaa u gudbisay cid kaaga garowda ma aragtay wax iyaga garaawo ma arkin cadaalad ma jirto wadanka wax cadaalad oo ka jira ma laha iyaga dhankooda shabaab wax warow kaa soo garay shaqo kuma lihinay dhaheen waa la raadiyey dad baa raadiyey meel kasta gees ka gees Soomaaliya inta 4 qablo ma loo geynin may tagin gabadhaas ayaga maan wadan inay dhaheen website-yadoodii ay ku soo qoreen bariyankana ay dhaheen haddana way ka hadli doonaan ma adiga toos ula xiriiray mise dad kale la xiriiray waa la xiriiray ummadada la xiriiray ma sheegeen waxay ku xaqiijinayaan in gabadha aysan qabsan maya website-kooda ay ku soo qoreen inay shaqo ku lahayn waana horaa loo sheegay oo idaacadaha qaar sheegay qof kasta waa ogyahay waana ku cadahay nimankan gabadhan meeshaas waa raatirasho gabadhaas hadii la dilay ayaga dilay hadii la haystana ayaga haayo adiga goorma gabadhaada kugu dambeysay gabadhayda habeenkii 26 iigu dambeysay oo 27 soo galaysay ila hadashay waa isla hadalnay waa bishii oo lixaad maxay ku sheegtay marka video call iskala hadalnay waxay tiri taliyaha ay wacay ayriha saacada maxay doonay iska joog waaga ku bariyo marka waxay dhahday waa la soo wacay waa taga waana imaanaya yaa ku qaadayo gabadhooda ii soo dirayaan mid kamid ah igu dhahday iga 3 saac oo habeenimo wacay gabadhiyo qadka ku jirna arkay ilaa waaga ka bariyaan wacay taliyaha wacayna waa kee taliyaha wacay waa nabad sugidda leega wacay tir taliyaha joog magac gaar kuma aysan sheegin maya magac gaar ima sheegin laakiin taliyaha nabad sugidda ay wacay igu dhahday kadib wicitaan baa bilowday waxaad ogaatay in khadka ka maqan tahay habeenkii oo dhan baa wacaysay ilaa subaxii maalinkii maxaad samaysay maalinkii kadib waa aniga marka meediyahan galay gabadhaydii waa iga maqan tahay irisayna iga maqan tahay cid ku soo jawaabtay wax ii soo jawaabay malaha baadiyaasiina ay wacay markuu i wacay waa u tagay wuxuu yiri loo bari kadib aan war ku soo siinaya man soo wicin dambo markaasna goormay ahayd waxay aheeday July 1st meelahaas aheeday hadda warkan baa soo baxay maxaad samaynaysaa qoys ahaan annaga warkaas kuma qanacsanin wax jirana maaha sababtoo ah gurmudaan tagnay lambarkii u dambeeyay gabadha waa noola diiday CID aan tagnay wax warama loo keenay police report aan geynay area-dan deganayn wax warama loo keenay maxkamadda ciidamadan tagnay maxkamaddii kulay waa tii guddi la bixiyay baarisay wadaa ilaa hadda sidee isleedahay marka arrintan waa lagu gulgaari karaa arrintan kulay ummadda Soomaaliyeed oo wax garadka
iyo dadka caqliga u saaxiibka oo dhan waa u jeedaan arrintan meesha ku socoto soo farageliyaan leh intii damiir ku jirto waa inay soo farageliyaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka iyo ummadda bini'aadanka oo kalaba intaba qadaro gabadhayda maskiinta oo dhiigeeda lagu banaystay waay haday la dilay ay haday nooshahay intaba dhibaato loogu geystay waay taas waxay ahayd hooyo Khaali Maxamuud Guhaad oo dhashay